asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaday daawadayaal kusoo dhawaada halkani waa juuq dhowr miidiya dhammaantiin waa idin salaamaya haddaad taagantiin haddaad jiiftaan iyo haddaad socotaanba waxaa kusoo dhawaataan xubintii xigmad iyo sheeko xiriir oo aalaaba aa nooga barataan maalmaha sabtida oo kale hadda aynaanu idiin soo gudbino waqtiyada kamid ah ayaa dunida waxaa ka talin jiray boqoradaasoo had iyo jeer waxay lahaan jireen faaliyayaal iyo la taliyayaal gaara boqorada kamid ayaa wuxuu sameeyay inuu u yeedho faaliyayaashiisii waxaan oran jiray sanad walba sanadka soo socda waxa uu noqonayo colaad abaar iyo sistamyada kale ee xilliyada kala duwan sheega dabadeetana nin kamid a dadka caadiga ayaa uu ku yiri waxaan ahay nin faaliye oo faalka aan lagaga daba dhufan xoogaa yaro hadiyada oo qaybinaya boqorka ayaa uu wax ka siiyey kadibna waxaa lagu yiri maadaama sheegatay faaliye waa inaad sheegtaa sanadka soo socda waxa uu yahay ninka nin faal garanaya ma aha in adigu kulli dee naf baa u geysay qiyaastii oo dee nin maalintaa baahan buu ahaa kadibna waxa uu yiri warniyow dee qolyihii kale waxaa samayn jiray maanta ha faaliyaan dib yaraysaa may haddaa sanadka soo sheegi weydo waxa weeyaan qoorta lagaa goynaya ninkii oo yaaban bal way waqtigiisii markaasaa 7 cisho lagu siiyey 7 cisho kadib ayaa waxaa dhacday ninkii isagoo islaad baxsatid oo meel ayaa sii maraya ayaa abeesa la hadashay abeesadii waxay ku tiri wariyaa ninka waan ku arkaayo xaaladdu way kugu adag tahay haddaan kuu sheego sanadka soo socda wuxuu noqonayo maxaad siinaysaa abaalmarinta lagu siin doono wax miga siinaysaa allayna markaas abeesoy horta marka hore dee ugu yaabay meel cidlaay wax kala hadlayaan su'aal waxaan waa abeesaynta gudka kala soo jeeda ala kulli hal markuu aqoonsi wuxuu abeesa tahay lana hadlayso shaydaanka scenario abeesadu waxay tuwan ku sheegay sanadka soo socda wuxuu noqon doona laakiin waa inaad abaalmarinta wax haysataa inaad waan ku wada siinay dhamaanteed baqaadaba ku jirta waxba dhamaanteed hay siinay aduu kala barmaysiinaysaa maqsuulaha kala bar baan ku siinay way sanadka soo socda wuxuu noqonayaa sanad colaad ah oo halisa oo la isku soo duulayo boqorka u sheeg ciidan ha samaysto xiriir ciidan ha arbisto waxa weeye farda ha samaysto sida ugu sheeg aad baad maasantii wada tawlo soo boqorkii mid xilligiiba iyadoo loo qabtay aan la gaarin ayuu ninkii soo istaagay kadibna wuxuu waxay noqonaysaa sanadka maanta sanad colaadeed weeye soo socda boqorow ciidamayno samee hal carbiyo ciidamada xiriyaha lagu xareeyo ilaahay wax ka wada sanadka sidii buu noqday deetana ninkii oo abaalmarin baa loo dhiibayo markaasay isii hormaabeesad waxaan xoolaa siin doontaa dahab iyo farda iyo waxba lagu abaalmarin kadibna alkii uu yimid abeesada ay joogto markaas nahay abeeso saytaa way kano markaas wuxuu qaasay inuu abeesada dilo hal seefan hor u soo qaatay abeesada lafteeda waxa moodeen si ogeeyay qaybin bigud kala soo jeeda markaas uu soo dhawaada markaas waxaan dee ku sida abaalmarintii aan ku siin lahaa waatan kadibna markaasay tirahaye mana arkaba waxa sitay sunna oo adu dee balano oo wixii aan ku soo gudbiyay systemkii aan doonayaa bal horta soo dhawo kula soo boodo si qorti ka gooyo dib bigudkii ugu booday deeyahay wax ka waday markaas ninkii go'aan godoobay baashina ma dilin oo iska soo tagay sanadkii ku xigay waxa yeelay ninkii faaliyaha fiicnaamee war waxaad yeelaysaa sanadkan waxa uu noqonayo soo sheeg ninkii baa ilaahay absuukan abeesadii waa kii dilay oo godob baa ka dhaxayso kuma noqon karo oo la faalma aqoonin sanadkana baxsuusiyo halkii maray hadana meel ka haashay wariyaha ninkii bilaabaalka haayo waan ku arkaaye bal waxaad yeelaysaa in sanadkan haddaan kuu sheego kii hore waa si ka cafeeyahay wax ma iga siinaysaa abaalmarinta lagu siin doono allayna adeerahay maantuni baxar faki wallaahi bilaatullah waan ku siinaya wakaasoo budubada alkiisu dicala caliyo tawaawac galay sita waxaad yeeshaa sanadkan soo socda wuxuu noqonayaa anaa kuu sheegaya abaalmarinta lagu siin doono hay wada keenine kala baroon sida awgeed waxa weeyaan sanadka soo socdaana waa sanad abaar ah dadka iyo waxa weey xoolo shub bay noqonayaan waa in la beerta dhulka la beerta boqorka saawshay boqorkii soo ordiyay markii war sanadka soo socda abaar dhulka la inoo beero dhulkii baa la beeray kadib markii la beeray baa ilaahay wax ka wada sidii bay u dhacday sanadkii sidii ma ku dhamaaday abaartii noqotay wax soo socday sanadkii wax la sii beertay ayaa ninkii leeyahay wallahi waa nin faal yaqaano haddana waa la abaalmariyay deetana markaas la leeyahay sanadkii xigay oo ninkii dee faalka ku fiicnaa inuu yeedho oo horta ma yaan sheeka dhaafin halka waxa dhacday bahashii uu sii war waxaan xoolaa ma siin kartid alla ila u jab maanta doonada safetir waayo uma butagin ba doorku iska galay deetana watara u yeedho hadana war ninkii oo bakaal sanadka saddexaad soo socon shay mas'aan adiga daay labadii sano dhaweyd baan sheegay sanadka ma sheegi karo ilmaha reer faalayaasha oo baydin faalin jiray hal idin ku yeedho waan yar xanuunsanaya halka ma iga deysaa ciibo ka dhageysan way war kaalay baa wallahi qorta laga jiray dad sheegay sanadkan waa ku daraysaa ninkii waa ka abeesadii mar wuu dilay
mar uu jaray kuma noqon karo wax la xusameeyo garan waa isagoo isla hadaba sanadka toos u baxso oo meel si ordaya mar walba markuu baxsan in bay bahashaas baxar fakiisa ay meel kala soo aashay war kaale waxba baxsanine waxa tii bilaa waa iska bilaabaal baa tahay inaad ro sanadkan hadii aan ku abaal aan wixii ku sheego soo socdo wuxuu noqonayo ma sidii baad geli doontaa ka wari mise waxbaad iga siin doontaa sunna wallahi waa intii 700 dhaarood intaas iga tahay de ma xila furna ku darmalaaye in ma realo sanadkaas maantay baxar fiki hanti wax waan haystaa wixii horena waxbaan kaaga keenaya war wixii hore waxbaa iga keen waan ku cafiyay sanadkan soo socda wuxuu noqonayaa ku sheegaya allah haduu leeyahay barikeen hadii kala ku taala anuu ku aaminay sanadka soo socda wuxuu noqonayaa waa sanad barwaaqo bay abeesad ku tiri waxa weeyaan xaaladu barwaaqo noqonaysa boqorka saa u sheeg adiguna adiga ku jirta awal boodi jirto beenaad hayday dad wixii kale si hadii kalaba waaya uu soo ordo sanadkiibu u sheegay boqorow sanadku waa sanad barwaaqo waa sanad bashbasha rooba baadaaya waka ilaahay wax ka wada tabtiba sanadkii noqday all waat dahab iyo halkan la siiyay dheeman iyo lacag iyo fardo ninkii baas wixii bas uu soo waday abeesada ku soo horgoynayahay sanad waan ku qiyaamay oo sanad waan ku dilaan doonay sanad waan ka baxsan maadaama 3 sano isku xiga aad baxar fakisay wixii aad doorkan lay wasiyo wakaase wada qaado dhamaantood dahabkii baa ugu soo horqabay taas waxaad yeeshaa iyo xaalka hore waxbaan ku sheegay dhigiiso aan dahab ma cuno ma qaato lacagna wax kuma iibsado fardana ma fuulo laakiin sabankan ku kala sheegaya sabankii horeeyay ku leeyahay sabankan waa colaad xil colaadeed baa hadaadiga ma ahayn maad xumayne de sanad colaadeed baa lagu jiro waadigi in wali wax buu dilayo waadigi damcaan inay disho sabankaas ka dhigay sabankii labaad ee aan ku sheegay in sanad amaaneed ahaa abaar baa hada qof wali waa goojoonay hatta hadii qofku xalsi qalbigu ka gaajoonayo waadigi igala baxsaday wixii la siiyo saas awgeed baa keentay in yaani aad igala baxsato xilliga watay ee ma ahayn wax adiga ahaa sanadkan oo sanad barwaaqo lagu jiro adiga ma ahe barwaaqada ayaa keentay in hadii keento qof waliba iska qalbi qabow yahay sida awgeed xoolahaaga qaado ma doonayo la tag aday ku taala ama abeesa la yiraahdaa ciidaasan cunaa ilaahay dhulku igu daadiyay uma socdo waxa warniyo nabaday sidaasna waxa lagu baranayaa xigmada oranaysa sanad waliba waxa uu yahay ayuun bay dadkuna noqonayaan hadii sanad colaadeed la galo dadkooda colaad bay noqonayaan hadii sanad abaareed la galana sanad abaareed baa la galaya waa ta Soomaalidu kuma amaahdo ilaahow wixii abaartiina ogaa aaranka waxba ha ka reebin oo macnaheedu ka dhigan tahay xilliga abaaraadkeed nin waliba adag tahay yaani dhibaatooyinkii la soo mariyay ceebihii dadkii ceebahayga ogaa ilaahow sanadka marka barwaaqada waxba ha ka reebin laabay leey waxa kale jirta sheeko Soomaalida ay tiraahdo nin baa bari wax abaar xum dhacay markaas uu dabangaal qashay dibaatana markaas uu ciyaar yimid markii sanadkii dambe markaas la siiga casar markaas sanadkii loo jiray markaas alla waa habli hoosta ka dhuxleeyay ninkaas waa miyankii hankii dabangaal ay bakayla qashay markaas uu hees ku dhuftay wuxuu yahay sabaankii siiga casar lahaa ninba siibu ku soo doogay sidii baan ku leeyahay imika hay haatan uu warka aynu hagaajino sanadka wax weyn ninba siibu ku soo doogayo la isuma qabanayni marka cala kulli xaal sanad waliba sidoo yahay ayay bulshada noqotaa waayo waliba Soomaalidu xilliga colaad lagu jirana dadku waa wada colaad xilliga abaarta lagu jirana dadku waa wada qaxaanqax xilli waliba waa sida uu yahay jaalayaal dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh goobta iga dhageysanaysaan waa Joog Dhowr Media ninka